jasiiraddan waa meesha keliya aan wakhti ka jirin. Qorraxda waxay u soo baxdaa sanadkii oo idil hal mar. Waxay sidoo kale habeen u noqotaa qorraxda u dhacdaa sanadkii oo idil hal mar. Yacni nuska hore sanadka maalin dheer ayay u tahay, halka nuska dambe sanadka habeen dheer ay u tahay. Waa jasiiradda Samaroy. Jasiiraddan cajiibka ah waxay ku taalaa galbeedka gobolka Tromso ee dalka Norway. Waa jasiirad qadiimi ah oo kalluumaysi. Waa jasiirad aad u qurux badan. Jasiiraddan qorraxda kama dhacdo 18 May ilaa 26 Luulyo oo dhan. 69 maalmood waxay u tahay maalin aan qorraxda dhacaynin. Waxaa ugu xigta habeen aad u dheer. Laga bilaabo November ilaa Janaayo waxay u tahay habeen qorraxda uma soo baxdo muddadaas oo idil. Sababtoo ah jasiiraddan gaabka leh waxay ku taalaa goobta waqooyi dhulka loo yaqaano Arctic Circle. Jasiiraddan waxaa ku nool keliya 300 qofood. Waxay ku tiirsan yihiin dadka ku nool jasiiradda kalluumaysiga iyo dalxiiska. Jasiiraddan waqtiga muhiimka ma aha heer ay gaareen goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga inaysan lahayn waqti go'an oo la isla ogyahay. Jasiiraddan Samaroy adiga ayaa xorriyaddaada xadidanaya waqtiga cuni lahayd iyo waqtigaad seexanayso oo qorraxda soo taagan ayaa habeensanaysaa. Ugu yaraan haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalkan la wadaag asxaabtaada oo share dheh, nagu soo bir YouTube-keena Xigmaso subscribe dhaho, hana ilaawin inaad TikTok-gina follow soo dhahdo. Mahadsanid.